waxaa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuu yiri maalin kasto oo khamiisa iyo maalin kasto isniin ah acmaasha adoomada kor loo qaadaa ilaahay baa acmaasha loo geeyaa markaasa ilaahay wuxuu u dambi dhaafaa cid kasto adoomadiisa ka mid illa cid mushrigo ilaahay adoomadiisa xaqi alle ka dhaxaysiiyay mooyee yaa kale nin kalaas isagana aan loo dhaafaynin oo maalinkaas isagana aan khamiista iyo jumcada marka acmaasha la qaaday aan loo dambi dhaafaynin waa kee wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ruuxa isaga iyo walaalkiisa muslimka ay ka dhaxaysa shaxnaa xiqdi oo ka dhaxeeyo alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala labadan xiqdiga iyo xumaanta isu haya dibdhiga arrinkooda u kaadiya ilaa ay ka soo heshiiyaan meelo badan baad qadi marka lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay waxa kamida in qalbigaagu saliim yahay qalbigaagu fayow yahay qalbigaagu xaaran yahay dadka muslimiinta wada jecesha xumaan aadan qalbiga ugu haynin qalbigaagu inuu u fayow yahay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ayaa waxa la weydiiyay dadka yaa ugu fadli badan rasuul ilaahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruux kasto oo mahmuumul qalbi as-saduqul lisan qalbigiisu mahmuum yahay arabkiisuna rum badan yahay waxay yiraahdeen garanay midka arabkiisu rum badan yahay qalbigiisa mahmuuma maxaa laga wadaa maana fahminan oo cadde wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa laga wadaa huwa at-taqiyyun naqiy wa midka qalbigiisa alla ka cabsi ku jiro qalbigiisuna daahir yahay oo nadiif yahay wasi wada nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa midka qalbigiisa aan dambi ku jirin gardarro iyo xadgudub iyo dulmi ku jirin dhilli iyo khiyaana ayna ku jirin xasad uusan qalbigiisa ku jirin kaasa ilaahay adoomada ilaahay ugu fadli badan uguna jecel yahay saas daraadeed hadaad qalbiga xumaan ku hayso xaaladahaasi iyo waqtiyadaasi munaasabka qiimaha badan ee la saamaxaya waa laga reebi waad ka hadhaysaa waa inaad marka qalbigaaga nadiifiso oo aad daahiriso oo aad ka dhigto qalbi saliim oo fayow nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saddex bari oo isku xigtay buu saxaabadiisa uu la fadhiyo wuxuu ku yiri waxa idin soo gali doona nin ahlu jannah saddexdii bari ba hal nin baa soo galay ninkii haday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen war ninkan saddex bari janno looga marqaati kacay xaalkiisu muxuu ah haday raadiyeen waxa cadaatay ninkaasi cibaado badan oo uu ragga la dheer yahay ma jirin soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad oo saxaabada kale la dheer yahay ma soo bixin laakiin maxaa la helay waxa la helay oo uu sheegay hal habeen ama seexanin anigoo qalbigayga ruux muslima xumaan ugu haya waa midda uu meesha ku gaadhay waay sidaas daraadeed haddaad ilaahay dambi dhaafkiisa rabto iyo acmaashaada in meel fiican la geeyo qalbigaaga ka shaqeeyo hagaaji xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iska saaro iska nadiif Allah tabaaraka wa ta'ala mu'miniinta markuu tilmaamay saddex qaybood buu ka dhigay fi suurati al-hashr qaar waa muhaajiriin qaarna waa ansaar qaarna waa qolada saddexaad oo tilmaantan la siiyo walladina jaa'u min ba'dihim labada gadaashooda kuwa yimid ee mu'miniinta damba ah ee dib ka yimid yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iiman waxay dhahayaan rabbiga noo dambi dhaaf annaga iyo walaalahanagii nooga horeeyay iimaanka noo dambi dhaaf wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aamanu qalbiga naga allah xiqdi ha gelinin xiqdi aanu hayno dadka mu'miniinta ilaahu qalbiga ha naga gelinin muslimiintu marka ha ka nabad galeen qalbigaagana u fur ya yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim si lagu dambi dhaafo wadantaada iyo maslaxadaada caafi dadka saamax wal kaadhimin al ghayb wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin
haddaad cadhaysantoo dhib aad dareemayso qarso dhibkaaga cadhadaada celi dadkana iska saamax oo cafi alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum ya abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu ardaah markuu ku xanaaqay ninkii mistax ibnu athaatha ya markuu ku xanaaqay oo uu caaisho dadkii ku been abuurtay ka qayb galay oo beenta faafiyeen abuuradka kadibna uu yidhi dib dambe inaanan u masruufaynin qaraabay ahaayeen ilaahay aayadunu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala walaa ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tuu ulil qurba wal masaakiina wal muhaajiriina fi sabiili illah walyafu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum war miyaydaan jeclayn in ilaahay idiin dhaafo idiin saamaxo jawaabtu waa haa waan jecelnahay ilaahay addoommadiisa saamaxa